الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal ma doonaysaa liibaan, ma doonaysaa deganaan, ma doonaysaa qalbi wanaagsan. qof walba oo naga mida wuxuu doonayaa inuu intaa helo. qof walba oo naga mida wuxuu u baahan yahay inuu xoojiyo xiriirka u dhaxeeya isaga iyo rabbigiis. marka xiriirkaas uu xoogsado, waxa uu qofku noqonayaa qof ku xiran rabbigiisii abuuray ee u horseeday wanaagga adduun iyo midka aakhiraba. haddaba waxaan kuu soo gudbinayaa barnaamij aad u sahlan oo qofkii Allah uu waafajiyo noqonaya mid rabbigii ku xiran. barnaamijkaasi oo ah mid acmaal la samaynayo habeenkii iyo maalintii iyo hal camal oo bishiiba mar la samaynayo. waxaadna biidnillaah ku noolaan doontaa nolol aan walwal iyo walbahaar toonna lahayn. waxaad ku noolaanaysaa nolol qurux badan oo heer sarraysa. waxa ugu horreeya barnaamijkaas waa in aad ilaaliso 5 salaadood ee waajibka ah ee ilaahay uu kugu farad yeelay: khushuucooda, shuruudooda, arkaantooda, waajibaadkooda, maxaa yeelay waa daawo salaadahaasi. kan labaad, ilaali sunnooyinka ka horeeya iyo kuwa ka dambeeya 5 salaadood. waa 12 ragcadood oo aad tukanayso habeenkii iyo maalintii. allahna wuxuu guri kaaga dhisayaa jannada. waxaadna haysataa damaanad ah in haddaad dhimato jannada aad gelayso. midda saddexaad waa salaada loo yaqaano salaada barqankii ama duxada. iska ilaali in ay ku dhaafto salaada duxada. waa salaada loo yaqaano salaatul awaabiin. waxaad tukataa 4 ragcadood oo 2 iyo 2 ah oo maalinka gelinkeeda hore ah. allah wuxuu kaa kaafinayaa sharka inta ka hartay maalinkaas. salaadaas duxada haddaad tukato maalin walba waxaad la ajar tahay adigoo soo xajiyo cumraystay xaj saxiixa oo taam ah. arrinka afaraad waa salaada witirka. iska ilaali inaad seexato adigoo aan tukan witirka xitaa 1 ragco oo keliya haba ahaatee. walaal, miyay kugu adag tahay bilaahi calayk 1 ragco oo keliya? bal arag sida uu allah kuu xifdinayo. haddii adigoo weese qaba oo tukada witirka aad seexato, malag baa ku ilaalinaya. mar kasta oo aad hadba dhinac isku gediso, midig bidix, wuxuu oranayaa alla u dambi dhaaf, alla u dambi dhaaf, alla u dambi dhaaf. wuxuu seexday isagoo weese qaba. arrinka shanaad waa inaad bil walba ka soonto 3 maalmood. haddee waa 3 maalmood oo keliya bishii. waxay u dhigmataa adigoo soomay sannadka oo dhan. intaa markaad la timaado, waxaa iyana xusid mudan arrin lama huraana oo ay tahay in qof kastoo mu'mina uusan ka tegin. waa adkaarta subaxii iyo galabkii. isku day inaadan weligaa ka tegin, xitaa hadday kugu qabato iyadoo jirkaaga kadif loo jarayo, marnaba ha ka tegin. walow aad akhrisaa hal mid oo keliya oo ah bismillaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi samaa. waxaa ugu dambeeya adkaarta hurdada. ha seexan ilaa aad akhriso adkaarta hurdada. xitaa haddii aad wax kale ka gaari weydo ama awoodi weydo, aadba ka akhriso oo keliya hal duco ah: astaghfirullah aladii laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh. ma garanaysaa waxaad helayso? allah wuxuu kuu dhaafayaa dunuubtaadii oo dhan, si kastoo ay u badan yihiin. walaal, intaas miyay kugu adag tahay? intaas miyay ku dhibaysaa? jawaabtu waa maya. haddaba la noolow allah. noloshaada allah ku xir. laga soo bilaabo marka aad soo toosto ilaa aad ka seexanayso, waxaad heli doontaa liibaan iyo raaxo adduunyo iyo mid aakhiro. allah idankiis waxaad heli doontaa nolol leh deganaan iyo xasilooni. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.